sida tooska nogala socda telefishinka Waaruf waxaan ku sugannahay goobta salaada ciida oo hadda laga soo dareeray waxaan si toos ah u wareysanaynaa dadkii ku tukaday goobta salaada ciida oo hambaliyada ciida magacaygu waa Maxamed Faarax Abdalle waxaan leeyahay ummadda islaamka meel wali joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Dirrabe ciid wanaagsan ciid al-fitr wanaagsan baan leeyahay nabad ku ciida meel wali joogtaan farxadu intee laag ما شاء الله aad baan faraxsanahay waad aragtaa maanta jawi degan oo ilaahay roobna noo leesay barwaaqaan ku ciidnay oo nabada waxaad moodaa sidii horena inay ciidu ka farxad badan tahay dadku inuu sidii hore ka badan yahay magaalada Dirrabe oo kadii la qurxiyay alxamdulillah aad baan faraxsanahay ka waran bishii Ramadaan ee barakeysaneed baan soo dhamaysanay cibaadada tajwiidka taraawiixda sidee dareemaysaa maanta adoo soo gabagabay bishii khayrka Ramadaan salaadii ciidina tukaday shucuurtaadu intee leeg iyo leegta alxamdulillah waa caafimaad baan ku soo dhamaysanay bishii Ramadaan sodonkeedii maantana ilaahay baa caafimaad noogu soo dhameeyay waa naga ciidayna cibaadadiina ilaahay naga aqbalaan leenahay ummadda islaamkana ilaahay ka wada aqbala dhamaantood aad iyo aad baad mahadsantahay adam fuad galab kulmiye ayaa la yiraahdaa waxaan deganahay magaalada Dirrabe khaas ahaan iskuulkan ugaas xasan la yiraahdo dabadiisa baan deganay insha Allah taala maalin khayr qabta waxaan maanta halkan ku kulanay ummadda muslimiinta magaalada Dirrabe oo wala dhan oo si fiican u labisatay isjecel walaal ah yaan halkan ku kulanay on ciidii garoonkii aan ku soo wada ciiday garoonkii oo 3 cisho ka hor la nadiifiyay khudbadii oo si fiican u dhacday xadiiskii iyo khudbadii oo la soo wada dhageystay dhalinyaradii oo wada ciiday khamiisyada isku wala geejisay alxamdulillah rabbil caalamiin farxad baan ku ciidnay nabadgeliyaan ku ciidnay caafimaad qab baan ku ciidnay ummadda Nabi Maxamedna waxaan leeyahay intii dhimatayna Allah u naxariisto intii caafimaad qabtana caafimaadkooda Allah u siyaadiyo wixii bukana Allah caafiyaan leenahay بارك الله مني ومنكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيد فاد magacayga waxaa la yiraahdaa Ibrahim Samirre Geelle magaalada Dirrabe aan ku dhashay waan ku noolahay waan ku dhaqanahay ma sha Allah tahniyada ciida al-fitrada munaasabada dareenkaagu shucuurtaadu shucuurtaydu maanta wallahi aad bay u kacsan tahay aad baan u faraxsanahay ummadda muslimiinta maanta waa maalintoodii waa maalintay farxayeen bisha oo dhan bay soo soomanayeen ay cibaadeysanayeen ay alla bari ku jireen maanta waa ciid al-fitridii ma sha Allah de ummadda muslimka maanta faraxsanay sida u muuqata dhalinyar ahaan oday dhaqameed siyaasiyiin oo midnimo muujinaya oo isku duuban baan maanta aad baan u faraxsanahay shucuurtayda ciidan goobta maanta lagu tukanayay sidii ciidii hore maxay ka duwan tahay waxay maanta kaga duwan tahay goobtani maanta waa la qurxiyay goobtan aad baa loo qurxiyay waxa koridor limaadkiiba aad looga shaqeeyay waa la qurxiyay nadaafadeeda quruxdeeda bilicdeeda iyo waxay kaga duwan tahay goobtii aan dhagax dhignay weeyaan xeer xiiso oo dhagax dhignay maanta marka aad baan u faraxsanahay waxay kaga duwan tahay waxaabooyinka oo dhan iyo nabadgelyo wadataa aad baan u faraxsanahay waxa bay kaga duwan aad iyo aad baan mahadsantahay waad mahadsantiin adeer magacaaga sabaxan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا قاعد أقول أحمد حوش مهراني درنا بنقولش مريض بدنا إن شاء الله شيخ حبيب إن شاء الله تعالى عيدنا الحمد لله فرح ضيد وبقول كيما بقول ضد كان وضع كيسين ده مارك إني كابا يا إيش معلنا إن كستوردو كلا جيس ضد قرح بدأ يجود كوجينا قلبي كوجنا قرح بالنظام في عن حبيت ده سنبال إلا كده ده shucuurtaadu intee leegtay adoo soo gutay bishii Ramadaan salaadii ciidana maanta soo tukaday soo gabagabay intee leeg ayaa dareemaysaa بسم الله horta waxa weeyaan shucuurtaydu waa boqolkiiba boqol ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay mataqaanaa dambigeega iyo dambiga waalidiinteeda iyo ka islaamka oo dhanba dhaafo insha Allah taala taasaan rajo weyn ku qabnaa insha Allah inuu ilaahay dambigeena dhaafo ciidana nin walba uu arkayaa siday tahay maanta nin walba oo islaamiga uu faraxsan yahay dabcan ciidan ciidihii kale sidee maxay kaga duwan tahay insha Allah taala waxa weeyaan horta sidii walaalkay sheegay de waa la qurxiyay oo tigaada aad arkaysa dooga iyo indhahaas ayaa ku siyaada dadkuna aad waxa la moodaa inay si fiican u faraxsan yihiin dhammaantood de halka inaan laga sii sareysiyo halka ay marag oo la sii aan baqaado in kasta xiradu dadka ka yaraatay
oo meel dadka leegde maaragtay loo sameeyo oo aad iyo aad maanta dadku waxay joogeen dibadda ku tukanayeen ilaa maaragtay sidaas ay dibadda u badnaayeen dadku maanta maas aad baad maasantahay assalaamu calaykum